dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku waraysanay halganto Cana Muuse Fooley oo ah hooyo halganta in badanna u soo joogtay halgamadii kala duwanaa ee Ogaadeniya haatana kamid ah hooyooyinka Ogaadeniya hormuudka ka halganka ay ku jirto jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. barnaamijkaasi gaarka ah ayaa waxa inoo qaaday wariye Cabdinuur Sheekh Maxamed. ugu horeyna waxa uu weydiiyey halganta Cana Muuse Fooley bal inay si kooban nooga warbixiso taariikh nololeedkeedii iyo halka ay weliba ku dhalatay. intaynan u gelin taariikhahaasi hore ee 64 ugu horreyn waxaan doonaynaa inaan wax yar ka ogaano taariikh nololeedkaagii xageed ku dhalatay ugu horreyn. anigu waxaan ku dhashay magaalada Dhagaxtuur, waxaan ku dhashay magaalada gudaheeda xaafadda koobaad baan ku dhashay. meeshan hadda maamul isku sheega ama gumaysigu uu ka dhigtay saldhigga booliska labada qol ee dadka lagu xidho geedka weyn ee gobka ah ee hortiisa ku yaala ee xududaydu ku duuganta. labada qol yaa dhisay maxaa loo dhisay maxay ma guri caadi ahaayeen? waxa loo dhisay halgama Sultan Biixi Fooley oo Ingiriisku u dhisay marka geel bara lagu dhisay. marka gurigaas laba qol buu ahaa, dharkii inuu ku darsaday xayla salaasa inuu ku darsaday qara waqti batilkii Ingiriisku laga qol buu dhisay laba qol waxa ku darsaday xayla salaasa laba qol waxa ku darsaday dharkii hadda aanu qoran gaagaaban wareeg ay wareejiyeen mooyaane waxay ku darsadeen weli maanan maqal. waan gartay halganta Cana in badan baad u soo joogtay halgankan Ogaadeniya hadda muddada socda xilliyada marxaladaha kala duwan soo maray wax badan baad u soo joogtay 64 labada halganba ama labada marxaladood waxaan filayaa inaad ahayd gabadh yar inaad ahayd waxyaabihii aad u soo joogtay xilligaasi ama kugu yaabka badnaa ama halganku qaabkii uu socday maxaa kamid ah? horta 64 waxa yar dhinacna hadii aad eegto waxay ka ahayd laba laka oo wax ciidano habaysan iyo wax soo midna ma ahayn. talaabada ugu horeysay ee ay qaadeen nimankii marka wax garadka ahaa ee odayaasha ahaa ama duqeydida loo dhan jiray waxay samaysteen shirkad la yiraahdo shirkadda Ogaadeniya oo dukaamo ah oo ay iyo geel iyo wax ballanqaadaya oo dukaamo la sameeyay. halkaas ayay si noo qarsoonto sidii lagu socdo yaa maalintii dadka Soomaaliya qaadatay calan. markii Soomaaliya calan qaadatay anagu waxaan calan baan saaray. marka waqooyiga Soomaaliya marka calan qaatay calankii waqooyiga Soomaaliya qaatay Hargeysa. markii Hargeysa saaratay gobolada Ogaadeniya waxay go'aansadeen inay saartaan iyaguna calan. calankii markii lagu dhawaaqay calankii la saaray ee magaalada Dhagaxtuur horta koob la wareegay ee kana shir kana saarta la guray مثلا دولة إذا لقري كبعدنا رجل ولا لاي يا صري على جمهورية الصومالية كذا تقولوا وقولوا الصومالية يحبورنا سميت مثل كده يحبوا الدجانا أوصل حلقة جوب معي لما تبطلين هاي وطن كل شيء سارني جي والصومالي أهو نوج بدمي نشري يا تعصم تعين ما كتمر لما كبر بدو شغل عبد الله الثاني رحمه الله سيمو دكتور سيادة داود كان كمدة كان كأها على لحظة من اللي جهلا كمدها سيدي منه هذا ما بقى في أنا قلت له كل أبياشود هذا الذي شغوي ذكرنا إنسان إلى شخص صالح بكمدها للعرب ها بكمدها ودكان السكة الرجلي هيها والدكان خلوه قال له ولا لا يي مكا لا يقدر ما يسوي الله يسوي مكا مثل إنجليز يحرنه كوكا في يسوي ولا لا ما يسوي الله يسوي مكا ساعة قال كل دحلي لبحثور ولا قبي سما ترفتح ولا قبي يدك توجيبه حسوق عادي كل دحلي تركي قبل لا كليه دقمين كان لاقى حي أنا كذا فاهم اللي جاي قبول وساق حل مقارنة اللي جاي أواري مع دكان كي شركة ولا هاي أواري اللي جي الله هراي ومرة هتعرف فراي على كل حال مركي تبوا كي لبحي ورياشوا إذا الوضع بحير مقصد ظاهر وهو كامل جاي حريا سر لقو قبطي حريا شركة لقو قبطي بعد اسمه قيبي قد بالله قد شيء قد يدي بالله قيبي مركز قبل لا يتجمعينك
أول بقبل كي تجمد إلى هاي المكة إذا كي راسه ترى بعيدا بالوقت أعطي حرية مثل وحى الوقت في الشر لليه هاي قبل كتو قبل هذا وبعدين يكملها وإنه عيدا يشاء فكمل ماشى لسوه الجريء قبل كلا صدره ما إذا ما هبيه إذا ما هاي أنا يبغى إذا ما بده تجا لا قبل إذا ما دمرك هو أول شغل إذا ما دمر ما كي مقالة لا قبل حال إذا ما دوي سعلين فاكر وقوع لحد يأفر في ناس مكي حر لحد كيبوها لحد يأفر كيبين إذا لحد كي صوماليا لا كان قاعد ويا قبل هذا وقايد واحد بحر واحد مقالة تيجي مقالة أواني كده جدك كشري يعني درسكم مو رابطين كشري هالكيسان وانقص تيجي على كشري كذي وانقص ولا سوي من كذا هذا تعضوها ومقع صوماليات بطا وانقص إلى حمر لقبل الله إلى مقالة تيجي إلى أول أنت وتفحنا لي هذا محدود إلى تجاري ما دام الحين يقول جوجا هيدي كتاب يرايد وأنا أضو يرايد دب أهدان أقول نقطة دكان كي أعتري دكان كجان عصفة أوجادين يلوب بحيي مثل هدان خلداني دكان كاتم قاها تشد أوجادين ما رك بع إسكالها مثل هلجن كإسكالها أو هلجن كالله وطلع جري كي حرنت الصومالية أوجادين يقيد كاي ما في هذا واحد لو قلت لك اللي هلجن واقف ما كده بدل الله ما كده هلجن أنت هي سي ما تراه هي سيدنتين إنها الصومالية صاقشن كذا يوضعوا يستلوا صليب النقضي واقف مركي لقوا عن صلي إن لها الجماعة اللي إحنا أفرتي حضيا لو شري أفكرت لك القيبية قبل هذا أوجادين يلو قيبية جمهورية الصومال لما كان هاي أفر سنة حرة هاي أنا لا قبل هذا وقودي كونفورت مكة أو مكة دبيان حرنا مرخص تكون أنت اللي أكبر كهش جمهورية الصومالية ويد كل عونة حرية أدونته لحظة من اللي عابرين ما كان حوابين باكرتين كل قف والبسيبه أركيين لكن كل مرة أنا يرى حتى لو حالهانين كماشوا هجامين الجامع هجامين ياشا كل هذا كشري كذا كل هذا يسوي منيه وحي كشري كلامنا ما ينالهين ما ينالهين وانقص أفر اللي إحنا كده قال كي مركي لقلي ونساق حري صوماليا نساق لي قالوا ولا ما بكسر عندك شيء أنت نساق عند قال لي هراء قال لي دعي وتوها كل يدري أنا أشوفي وتوها هذا رئيسه يكي عبارك كي عبارك وحه قامين سيد محمد سيد عمر يا هو قامين أبندوله وتوها عاقل يراني اللي هذا محمد علي عبد الله تاني رحمه الله شيء وين تاني تبع كي عبارك يا دقال قبل الله قبل يسوليه بعد ما هذا اللي يراه أنا يا قبل إذا سيد يوسف علي يهون على اللوح يا فاطمة أو ظاهر شيء قاسم يا وحنا الدم علينا نتبهد بيوقينه إذا كنت يا هالك أولا أنا بقول شو مقالة شيء عبارك كوكو مقالة دنا أي عيد مضفديان وانقص مقالة إذا أنا لا فرشت فيه ولا بتروح لحالها عبد يوم الواحد فيه كرها بحنيا مجلس هذا بس أنا بربط ثقافية اللي تشوف يعني أنا عيل بقول أمنيني ده حير ما اللي ده أول كل كذا ربط ضمير ومن بافرح خامو صارنت هاي يعني أنا سيدا يسب عليك حنا وحنا نقول شيء عبارك تبدي ونقولتي تبدي مركز نقولني وراشدة كل شيء وانو مقامة سأنا بياكله بريس بيحيوك كانوا ما كان مقالة كل مقالة واحد وصلنا عشر يضع أي تهي مقالة دي أو كل إنك يقانا إلى كفلاتور كحالة إيشيجا قرع أول هرتي سكويا إلى قرع أول أنت كذا حيسا أي لما يبغى تسوي سفينة بل دول وصل في مجال معنا ما أول وقف حيان لأن أنا بابور كيف سفر إذا كسريه لأن أنا كاره يتبلدي يا صار يا صار سكوت طبعا إذا شجع دماريه مركز ربك كذا ليش مركز أول القرني هذا بقى مقولة إنه أتكلم عن كل ولا يتصاب بحي وقال ولا يتصاب بحي بحيث الحمل الجبهري أنا قلت له سبنا أنا ماشي بكسر بحلبة يا ضيورته قرية خاصة تقاك باللوزة سيدا سمرك هذا تقاك لو قبصري تقاك سيد بكوبا باي ومقحني وحنك اللي حك سومالي marka halganka fi lixdan iyo afartii bilowday lagu bilaabay qaabka sadda noo sheegtay shirkii xorriyo lagu go'aansaday maalinta weerarkii lagu sameeyay cirkiga dhulka laga weeraray uu ku hagaasay miyaa halkaas ugu dambeysay mid jamhuuriyadda Soomaaliya soo gashay oo dib ka yabyabtay oo halganka ka socday waan idin soo wadaa haye qoryahan markii ku dagaalamay inuu buur baa loo dhajiray waanga qabli wiilashu waxay ku yeesireen in ayaayilka moodayo in baxbu tareenin ayaayilka moodayo برد النافية عنا برهان ولا وعلن وقادين عنا برهان ولا وعلن وقادين وعلن وقادين وانقر وحا أنا تاجره نوجي
waxaa jirta dowladda Soomaaliya looga yimid xaggeeda waxay ahayd hubkaas oo qorigaas wala buulka oo halkaliyaala markii la qaxay ee la noqday raggii jabhadda ahaa waxay noqdeen 3 qaybood qayb ciidamadii Soomaaliya lagu daro Itoobiya wada hadlay Soomaaliya halkankii ciidamada yadii waday 3 qaybood baa loo qaybiyay qayb waxay noqotay Soomaaliya oo yiraahdo anagu ciidan ma noqonayna waddankeega baan u qaxay iyo qayb ku biirta Soomaaliya iyo qayb tiraahdo hana la tababaro oo waddankeena loo tababaro waddankeena loo tababaro anagu jabhadana la tababaro yaa kamid ah kuwii ku biiray ciidamada Soomaaliya waxa ka xasuntahay ku jirtaa ciidamada Soomaaliya rag badan baa ku biiray yaa kamid ah oo magac dhabi kartaa dad xasuusto radiwaaga meesha ka soo galay ee kamid ahaa jabhadii kamid ka ahaa ee markay Itoobiya iyo Soomaaliya wada hadleen ciidamadii in la kala fakiyo la damcay ee Soomaaliya saraakiisheeda ama kamid noqday ama ku biiray ciidamadii Soomaaliya inta saacado ma garanayo haye hadii ciidamadu ku biiray saacado ma garanayo waan gar laakiin markii ciidamadii intii diiday in badan qaar ka garan yaa kamid ahaa waxa kamid ah Cabdi Ismaaciil waxa kamid ah Muuse Xaaji Cismaan waxa kamid ah Cabdi Xiis Farlow yaa kamid ah ragii diiday ay jabhadaana loo tababaro waayahay baa la yiri Cabdirashiid Cali Sharba arke yaa wuxuu u ilaamiyay intii diiday idahana la tababaro jabhadaana lagu tababaro in garow la geeyo si tababar lagu furo ragii waa la qaaday garow la geeyay ragii garow markii la geeyay kale anigu si ay u jireen ma garanayo ragii waxa loogu daray garow soo maxaa loogu daray garow soo loogu daray suuliidii la yiraahdo waan gar wixii soo noqday la helay waxay ay sheegeen in suuliidii la yiraahdo loogu daray raashidkii oo garow ah ragii horta way dhinteen intiiba ha saddex adigu 5 nin baa laga arkay wax noloo ah lagu arkay ragii markii la weydiiyay waxa loo sheegay in garow loogu daray diidii idinku saad ku soo baxdeen baan noo waxay waxaan ku soo baxnay gabadh dhul bahanta oo hooyadeed ogaadeen makaahii la tahay ya iyada oo geela sarmaan wali maanan arag anigu magaalada la yiraahdo garow geela sarmaan hoostood anagoo gurguuranayna ee gabadhaasi nagu soo baxday waxay loo leestay riyaha caanahoodii markaanu abnay yaanu afka iyo sankaba dhig ka sii daynay laba markaas aan noogu horeysay ka bacdina soo gurguuranayeen soo lugeynayeen sidii ku soo galay waddanka ogaadeenayeen ka dhagaysa raadiyo xoriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xoriyo codka shacabka ogaadeenaya Cabdirashiid Cali Sharba arke yaa wuxuu u ilaamiyay intii diiday idahana la tababaro jabhadaana lagu tababaro in garow la geeyo si tababar lagu furo ragii waa la qaaday garow la geeyay ragii garow markii la geeyay kale anigu si ay u jireen ma garanayo ragii waxa loogu daray garow soo maxaa loogu daray garow soo loogu daray suuliidii la yiraahdo waan gar wixii soo noqday la helay waxay ay sheegeen in suuliidii la yiraahdo loogu daray raashidkii oo garow ah ragii horta way dhinteen intiiba ha adigu 5 nin baa laga arkay wax noloo ah lagu arkay ragii markii la weydiiyay waxa loo sheegay in garow loogu daray diidii idinku saad ku soo baxdeen baan noo waxay waxaan ku soo baxnay gabadh dhul bahanta oo hooyadeed ogaadeen makaahii la tahay ya iyada oo geela sarmaan wali maanan arag anigu magaalada la yiraahdo garow geela sarmaan hoostood anagoo gurguuranayna ee gabadhaasi nagu soo baxday waxay loo leestay riyaha caanahoodii markaanu abnay yaanu afka iyo sankaba dhig ka sii daynay laba markaas aan noogu horeysay ka bacdina soo gurguuranayeen soo lugeynayeen sidii ku soo galay waddanka ogaadeenayeen marka caanaha riyaha u noqday yaa baxsaday ilaahay ka soo aan ilaahna hey kalmaati kalmaati ka heleen waan gatay halganta canab aan u soo daadagno halgankii 77 iyo kan hadda aan ku jiraba taariikh badan bad waxa la rabaa moogta wixii in la qiro oo la sheego sax magaalada garow la yiraahdo ogaadeen ma degaan الآن كأنه تصدق أنه تشوفنه وكيف كتاب ولا سوي دين كتاب صح حضارة أوجادين بلي هذا رجي وهذا السنيجي دي كذا صنف الله قدري يا قاطن
حواليه اللي جو عاصي وحلو يقالنا حبالة أقادين بلو يقالنا وتاريخ لهم قفك أروده لسنة اختيار له لكن وابن عدامة وان قرتي runtii taariikh badan baa haysaa waxyaabo badan waxa tahay xogaal iyo goobjoog baad u ahayd halgalkii 64 halkaas ku hagaasay cid kasta gacanaha ku lahaata hagaasidiisa ama arqaladiintiisii waxa la soo gaaray halgalkii weynaa adduunka aadka looga yaqaanay ee la oran jiray sanadkii baa la soo gaaray xilligaas oo aan filayo inaad ka roonayd ama aad ka kortayba intii aad la ekayd 64 garaad badanna uu ku ziyaaday maxay ku kala duwanayeen labada halgan waxay ku kala duwanayeen labada halgan midna dawladda Soomaaliya kaalmo mooyaane waxa shaqooyinka ku dartay fargalida meeyna jirin kamna sagaal magaalo gobol la xoreeyay ee ciidamada Soomaaliya galeen labada ugu weyn meesha laga dhacay waxay ciidamada Soomaaliya galay ee jabhada garabsiinay waayo wixii kala jabhada ay ahaayeen jabhadu waxay gashay 76 adigu 75 baa habayntu ahay 76 gudaha isugu tagaan 77 waxa galay ciidamada Soomaaliya labada halgan baa ay hadda ka sheekaynayso 64 64 iyo 77 adigu ma ahayd xubin firfircoon oo 64 waa noo soo sheekayna xubin firfircoon ahayd laakiin 77 xubin firfircoon oo hawluhu sida u dhacayaan iyo sida halganku u socdo iyo dawladda Soomaaliya si fargal ugu samaysay iyo qodob meesha la tago xubin ogaa oo kaalin ka qaadanaya ma ahayd horta 77 shaqaale dawladeed baan ahaa oo gacanta ku shaqaynayay laakiin kaalmo ahaan iyo xogagal ahaan intaba diyaar baan u hawaana taagnaa oo ragga dhaawacaba 24 ka saax martiin iyo isbitaalka xooga la kala soo marin jiray cuntada la siiyay ogaanayay sida yihiin baan ogaanayay waa la socdo toddobaadkiiba marba inta gabdhaha joogta inta urursadaan oo ay hogaamiso Faadma xataa xirtay قالوا هذا جوك مريكان جوك مريكان فحلمي سديد باهرة قبل ولا ماشي كنت شفتين كنت ترانا والله قولها اللي أنت يسدك دقا بريسو صادياري هلبها نوك قلت شيء أنا قلت ماذا تشوف تقوي كتشوفنا حمر تلاقى نوك قلت شيء كذا تلاقى لو قلت بيصير لو قلت شيء بدها صبا دقال لما يجي وقتهي ولي واحد نكون جرا برنامج كي إنه كذا هذا ينتحنها تاريخات هالجنة وقاعدين يا أي صامرين وحنا برنامج كان مرتين هو هالجنة عنا موسى فولي أو وحياة بدن يحلية بدن بجوجو وصواهي وحنا هذا كم التحي هو يوينك لفظة قوة هالجنة وقاعدين يا كسرعات بدها وقاعدين يا وحنا كنا شعي بريء أفريقيا وعدم بالكرادو ودجا كرادو ولا كريتي كراد صاويو يكاد تبع سمانتي سيقو داودان جمايلي مايا كرات طويو يكادو تدحو مانتي كيقو داودان جمايلي مايا قد كذا قد تبي كوبايا شيء غالي كوجا شيء غالي وطاي هالجلسة عند موسى فولي وحنتلا يا واحد كسو جدا فمي تاريخ كله هالجلك أوجادينية هي حرنمدي جمهورية الصومالية يعني لحظة وحاضر كوان سلطان بيحي فولي وأباه هذا شيء تاريخي وحمكاه يتاهل الجنيد أما اللي هي أفرتها هاتو أما وحدة توريبها هاتي كلي وحيرانا ويشتي وأنا تاريخ الدفاع عنه هينين وحوينانا ويشتي
كل هالك كيو كتري من كوه قوبي بوها ما يصاب تايتهاي وحوان قرنيه هرتي سنوات شوفي وأي من كذا ما وسوا هالكبر ودلك أنت أصلا إلى تجي لندن أمة صومالية دونها كمية وحقبيل اللي ده لما وحرر ما أهين ما قسم عليه تفسره كعنت اللي قلت لي لندن واجي وتجي ما حسوسنا عيد متواضع يا ريال وحكي ما جرنيش ما يدنين حمار السوير ديبوها ودك تتجمرك كلاكول كي إنجليز كيو يا حمار هذا يا حمار هذا كلاكول كي وكنت لي دوكي ها هل يا لندن تجي ما كارب ودك يقول لنا تجي ويا البقر ودك كلا قيبيه مرت فيري إيريا هي مرة ودك أنت سكبال زباهي صح ما مركي ودك أنت سكرل لدنيا إلا بحجيو قيمته أي سعتي يتجي لندن تجي لندن ما كان مياه الله غيره دولة إنجليز كبقطوية إنجليز كأوية ده مساعتها تجي وتجي وطن في قيمة اللي بحية قيمة كلام هذا اللي بحين ربوا إنه كلا سوحات شو ما دام إنجليز قميتها ما دام إنجليز قميتها صومالي أدي بوس أنت صومالي قبل ما قال سنين أنت آخرية قال سنين بوتجي وانقرتي ما هي واحد قاعدين يكليه وسعد واحد قاعدين يكليه وسعد ما يناهي كبعد ما تقول كذا قلبيجي قميتي قال سيا أنت أخرى أنت دنبلا لا سعدي يو مركا صوماليا حر لماذا مركا قاتل يقول لك أنت هو اللي بحبين أنت ضبيت في الإيري ده اللي قلت رأي إذا كلمة ما كل أنت دوال يراك كل هالكلمة بقول شيء بتريها رحمة الله سيدي ما هي كلمة داس كلمة داس وحي وحلا دولة يسفير إيري إنها الجيشة لكانوا ست إيري هالجيزة لو ما دارت الضبيعي أدوك على شيء قبل شرر وأنا قلت بين أنت سفير إيري ده تبى لو الجيشة إلا بحكمه معناه قوة كجررين إلا راعيه هالجيشة وقوي قلب الصومالي إلا راعيه سفير إيري ده صح إلا راعيه الجيشة هو جمهورية حقوق الصومالية صراحة صراحة إسلام جديد بعد وده كذا لما كانوا وقالين كاي مري أمبار مري مركا ديد مدي سيبا لو راعيه ريتيت إيريا لو راعيه وقالين لما كانوا قويين يسوي هذا الموقف كاي استاجي يدو وده كذا لما كانوا قويين وان قرتي هل جنت أنا أنت إن نوجرين جاليد أنا فكر صنطة يا بريء أفريقيا يهويين كهل جنك وقالين لفظ سوى كم تحي هل جمدي لوضعها منا أوها صي صبر لأنا إعراض اللي إحنا يعفرتي منا أفشل ما يترجلنتي الدولة دي صوماليا جمهورية الصومالية كسرة المكي وضع فيه تكبر الحرية إلى مدى دي دبابات كي يسوق لسي إذا كان هذا الصعداء كل يسجال بقول يا أفر يسجاشن كي باللوضي أما يجبهدوا ديتني يا أفر تيجا عستي ما حاول لحياة الأوران كرتا ما دام الوقتية بدن يحلية بدن يوحياه بدن كل شيء صحيح أرت وقت جه هراء وقت كان حتى وحصل ما هين فاندر واي وقت اللي بسلاطي ده هي وقت جهر متوقع هل كان صح هل كان بسلاطي بوه وانجر لا أجادي ماشى أنا لقى هيستا صح وحكم بس يقول وقت إلا يهين اللي أجادي بوها يوحنا قلت وقتنا يبى وها مكة ما دار أفرية لحدا شيء هاي سدات اللي أفرتي تاريخنا أنت وضحت تفكرنا إيش وحل ده وكان قاري مكة أما هنا لا شلافية أما هنا لا بهدلوا أما قال هلا ما يتبيه هذا هو كان قاري هل كان هذا أي هروب كذا هاي بدو دنيا حريص وقاعدين وكان قاري وانجر يا وبدي سكان قار تهاي يا متراه وقفتين هذا بدنا حريص وقاعدين صح مال في عن وبرت الماضي ده روى كثرين صح مركه الشعب كودي يوعي قليين مركه الشعب كودي وشيء قال يوعي قليين أي أدرس لاشتين بفناك وصبحين مركه ضد متعلمين أو وحقرنا جاء أو وحبرتي يلقوا وقامتي marka farqiga u dhaxeeyo waxa weeyaan leedahay shacabkii oo bislaaday iyo hogaamintii oo bislaatay oo aan faragelin oo galay in dib looga yeeriyo oo galay midna aan ogolayn oo midnimo iyo isku tashi ku socda on cidna waxay ka rabaan ay jirin gootika tayka gacanta dadka qodada bay kugu bugaayaan shayagaale kushayagaale waan gartay واجي لا أتأسي جبهة ودنيا وحرية وقادين أوان لتكون يتغال بقولي أفر سديتن كي وحنت لها أنا المجال حمر جوتي وشقالة الدولية على حيد نعم جوب جوجنا أبوها حيد أما أدو حكوا بيد بقى لأن يريد
يرجع كلا أساسي أما أساس كذا كلا هذا يجيبه كذا arrimahaas maxaa noo sheegi kartaa qaabay ku asaasantay qaab qarsoodi inay ahayd baan maqalay oo muddo la cardinayo la dhowrayay adigu sawaaya kaalin ma ku lahayd nacam wayaanu afar habeen markii ku dhawaaqitaankeed uu ahaa uu ka dhimanaa ma yaa ku dhawaaqsana nacam leega meel la yiraahdo yaa lagu qabtay hadee ku taala waxay ku taalaa baldoogla meel la yiraahdo oo taakad laga xukumo shacbahan yeehay meesha la isku tagay si loogu dhawaaqo oo wana leh ha ugu soo dhisi guddiga gudaha waxa laga soo dhawaaqay dibadda oo de Soomaaliya kaga dhawaaqi karay laakiin wax noo dhinaa ma ila jirin صح farku Soomaaliya fahmin afar habeen ma ku dhawaaqitaankiisu ay ahayd yaani kitabkan aan amara adu daartay halganka iyo qadiyada ana kacanka u shaqeeya yaa la dhaartay waxa idaariyo kitabka jaamaca ay mariyay Maxamed Siraad Doolaalo farku Soomaaliya fahmin kaafi Yuusuf Cali صح waxa ugu soo galeen labadaas wiil oo ugu yimaado wiil cabdi ilaa la yiraahdo tajaamiciin bay haayeen waxay ugu soo galeen waxay ahayd Saniya Raxma Allah siya kaafi Yuusuf Cali oo wasiirkii gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeyay ahaa ku magacaawna xilliga ku magacaawna ma marka kumuna magacaawna marka dambu ka bixmacna yaa waxa loo diiday jaamacad Soomaaliya Polytechnico iskool Polytechnico ka baxay jaamacadiisi ba doonayeen aan iskool in loo ogolaado uu galo waa la xisay waa la diiday aqoonsi baa lagu xiray inuu ka helo degmadii uga sameeyay gobolkan uga soo asixiyay maadaama inta saa ugu yimaadeen aan durbaho u sameeyay ba waxay siiyaan alaalaha tani kaalin buuxdo loo gali kartaaye ila soo qabta aqoon hormiyana ku lahayn inaad ahayd halganto ka soo qayb qaadatay dagaaladii halganadii aan idhaahdo 64 iyo 17 kimiyana aqoon ku lahayn markaas way yaqaaneen soo waxa maqashay maaha laakiin wala la iga cabsanayo de kacanka uu shaqeynayay wala la iga cabsanayo صح ana sida qarsoodi u ah yaa waxa xitaa la igu xujiyay faadin xisi xasan guriga lama tagi kartid isma la taqaana ayaga kugu xujeynaya ayaga kugu xiraya ayaga kugu xiray uma tagi kartid qofna naam laakiin waxaanu ku dirsano iyo waxaanu ka rabno uun kaalinteeda gal waa yahay maanta sidii baan ahayn sidii baan ku shaqeynayno xibno ugu ahayn waa tii dhibaatadii Soomaaliya dhacday iyadoo inta Soomaaliya ayna dhicin wiil aanu walaalahayn baa waxa dilay kacaankii Saniya Raxma Allah siyo biditoog la haystay magaciis isma sultaan bixi baan oran jiray dadka ku fiday maydkiisi ha korna lagu ahaa ina ka xirka adigu markaanu aragnay dhacam sida loo socday waxa la sameeyay adigu aanu yar qofte bar tilmaameed noqday baan ahaa kacaanku xilkeedu hayay igala wareegay ururka haweenkan ku jiray degmada waa bari baan ka ahaa gudoomiye ku xigeen wuxuu dib baa igala wareegay gurigayga arreystalay ka dhiga xabsi guri baa lagu geliyay ha marka la iima haysanin jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen waxa la ii haysay Umar Jaas u qaatay lacag oo u geysay waayo in Umar Jaas dawladda ka goostay ee Itoobiya intuu u galay mucaarad ka noqday yaa waxay ugu tagtay faafax dhow isagoo oo jooga iyo ugu geysay lacag waa ugu dacweeyay haween waxna kama jirno been bay hay adigu sidii baan u soo qaxnay waxaan magaalada Dhobley la yiraahdo Dhobley baan joogay waqti 8 saac ay tahay oo wiil yar markaa u muray annaaska siinayo oo aniga iyo arbay iyo kay Bashiir Ahmed Awar Maxamuud Sheekh Yuusuf Haybe Sheekh Maxamed Khaliif inta yada aanu nahay inta shax ka sanay jeed labi hoorti fadhiyo wiil kala naaska asiisanayo idaacadu waxay ku timidistay inuu baxay inuu wadanka ka baxay ha way inta la soo qaxin way galeen ciidamada ومسلمين تقارب جودها بتشري تانا سواقحين أنت تبرد تبقى أقحد والله تجي ولا جب بحال مركب ودك وكذي سوالف بتشري وحنا نكسي وبحال ويلشي بواحد يدهدين واحد عقه والله يستعمل كيف قالوا كانوا جوه هاي وأصلا كيف فياشك مثل كوي فياشك ما لا وفياشك أنتوا أصلا محمد سياد برا كبح وانت كوي ما محمد سياد برا نصاب إحنا بنكروسات وسجاشن يلا بدي ويجان هاي جبت المركب بحال ونقول لا يبغى يسوق حنتي والله وحنا ما نسوي قلقلنا أو نبحث من نوع مر بقص ويا حبط استبات أفر تقول قبلي في كم تدولش بس نقدر واحد ما حد دوني ما رؤية هذا الشيء يعني نروح نسميه ساموتك وقوان ها
وحكوري وح أنا هانتي هون ما انتهي سكتينة إذا شاشت سوق أنا بحس بحمل سوق كبرني كتيرة دي من سوق قدمي كتيرة دي وحنا نوجيسين روا فوسط الشيطان صح وحنا نطنوا الصاحر ما كانوا الشيطان في صاحي سرني يا وحنا هذا نه الله وقعني باب فادس ثانية رحمة الله سيدي وين كورنيل أها ومحمود كاريال ورجحي وقبي ملك حسمها يعني أمي كيف وسي سوق فديها ودبليه محمود بان الله ضل وحنا كل محمود وهاي وحنا طول إنه وحي عيد إنه مدارج سوق ما قاعد شاف كذا طاقة يا بني لكن بابور بحثي دام مية بابور لا إسكورت ولا بابور لا إسكورت لا أوي أقدر أنت بان إسكورت حنا مالتي يهبين شيء خليش تنبنا وطلع حبين وقاعدين يوقعين هاي في سورة كريه تظهرنا وجاعين صح في وقت أي صحي يا تار لا يغير قبلي يلبس مرت بالليل هذا يغير حلو وش يقول يبقى حلقة وحكوا الرباء كي تاكي من تقول وحكوا المحايدين دارنا وحكوا بابور ولا قاتل يا روادي بابور ولا قاتل حاجة ذيك قاتل ولا عاو ومننا ما هيستان مننا ما هيستان marka waxaan doonayna barta ka lugayno ma lugayn kartaan waa la idin leeyahay waxba lugaynina iska nasiibsada oo ninkan dadka bartilmaameedka aaramuuna ahayn maxamuud kaariye ee saa loogu fog yahay bal inuu ilaahay weyn macbuudkiin ka soo nixiyo iska suga waan gartay قمتوا مدقاتا قدر الميلا إلى مدينة taariikhda barbaan dib ugu laabanaynaa aan usoo laabano marka hadda marxaladda hadda la taagan yahay ee halganka ogaadeen ee hormuud ku tahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo jaaliyadda aad adigu ka tirsan tahay hadda ee bariga africa maadaama aad xilligii kala guurka ee 90 92 laga yaabo ogaadeen waxyaabo badan aad lafteeda uga soo joogtay laakiin hadda jaaliyadiina hadda bariga africa aad ka tirsan tahay halgankan sidee uga qayb qaadataan ka hooyooyin ahaan ka jaaliyad ahaan ka xubna ahaan ka rugcada ahaan waxaan ku yiri kollay waxa meesha u soo waa hawl waa gumaysigu cadaadiskiisii meesha uu nakeen meesha wixii hawlaha laga qabtaa waa wax go'an waa hawl sida u badan ma aha idan furtaagan ama biyasiin ama raashin geeniya mid waxaan u qaban kayaa waxa weeyaan dhaqaale oo iskaasiin inta uma samayn kara wixii taa kuleyn heli kara inta wax qayb qaata intaan wana qayb qaadana صح taas waxa weeye waa kaalin laga baahnaa weeye laakiin waxa jirta kaalmo kale oo laga baahan yahay rugcadaaba tahay waxyaabo badan baa u soo joogtay hooyo waxa tahay halkii badan ku soo jirtay marxalada kala duwan oo soo marayna la socotay dhalinyaro fara badan waxa jirtay xilliyadii kadib ama qixi kadib dhashay ama toban kadib dhashayba oo halgamadii hore qaabkii ay burbureen looga sheekeeyo qaabka halgankan hadda socda ee jawhar muuse tahay uu taabagalay looga sheekeeyo wacyi gelin dhalinyaro oo rag iyo dumar bale hawlaha ka qayb qaata marka jaaliyad ahaan uga qayb qaadataan oo guddi jaaliyada mise ka hooyooyin ahaan uga qayb qaadataan ka hooyooyin ahaan waan uga qayb qaadanaa ka jaaliyad ahaan waan uga qayb dhiirigelin u baahan yihiin صح wax loo sheego u baahan yihiin in taariikhdooda looga sheekeeyo u baahan yihiin buraanbur baan ugu tirinaa galay baan ugu tirinaa dhaantaan ugu tirinaa hadalkaasaan kusoo xasuustay waxaa kaloo aan maqlay ama meelo badan oo shirar badan oo ka qayb gashay aan kugu arkay adigoo suugaan ka tirinaya suugaan halgabay ka tirinaya ama buraanbur ha ahaato ama gabay ha ahaato waxaan jeclahay marka inaad ka mid tahay hal abuurada ama abwaanada Soomaalida ogaadeen inaad ka mid tahay jeclahay walow aad baan lagu aqoonini gabayadii ama buraanburadii aad u tirisay ama halganka u tirisay ama cadowga aad ka tirisay waxaad ka xasuusato ma jiraa ama haadan kuwa 64 ama ka haadan 77 ama kuwa hadda jooga ha haadan maxaa kamid ah waxa kamid ah horta waxa jirta inaad afirsato horta waxa idin sheegaya oo idin horumarinaya gabay taariikh ah taariikhdeedu waxa ay tahay waxa la yidhi dunida aad aragtay nin baqaarad buu tagaa daayin ka inagu abuur meel noo daray
دقان كي يقول نقول أفريقيا الدنيا ضبري حتى ندل على حكم على تركان فريق دول كي قالوا دهين وأنترير بحول كويس التوفانية تهر أراري يمين مركو صوت دقين أضياشك وتبضي دودي وهرسيت قويدي وحو كيدي دول كينا دهين أنا ضحب يدين كالي قدام تيرنا لدين ولا يعن لا يقدر طولها ولا يدي ديدا من نورا ترتارة سوحي جزن طباق كلا تركني أنك علي أنا طولي يدكتوا دماعين فقلنا دول كي قدقين صحيح ما كاتر بينا دواق كلا ديار بانها يدب حسنان كبير تقيتدي ديدا عيدونا لقود القرص إلا كاباش تارك الكتاب حيث دكتورانا ويا تاريخ بيقود أوي هدينا الدادالي سوكم يسانا ما قالوا بيردوا سارعين دانا دهب خيالا وقال الداقة يشيبوا قاسل فهو كدي تدكيه وقال إلي بالدميه وحو دلدلا يتبدي بالكتاب دودي يسير لبعد دقودي وحو كيدي تدبر في ويان بريد العنكر دندما ويا وحن دهب كمودش دولة بانا يبقى جلواتيان وحن السواد داخل عنيقا تباري كرا تشان كإلاننا يانا ويقدر طوضها أضيادي ديراء وقطعين وكي أحمد قري كدولا يدافرين تبكي كبختي وعيرين كتاقين تنانا دي بورتقش عيد تسو تفرين دمر وحي قارئ دخل كل عي ولي مدوكو درسك يا قا تديف في دكادوات تدشي نسورة كفر قدام بابيه وسوت الدنيا واحد بلد دادي وحرم طال نوع هاي هالكو دورة يسوى ضد كفر الله يودي وكي حقيقة الدنيا مركي كدم بيسي وكدروش وقحي يا أبيدي وقولي فرص كان قدور السري كوف جونكو يقال كبروا قدناي دادي سيد كان من تربية دي كان كفر قدام بابيه وسوت الدنيا واحد بلد دادي وحرم طال نوع هاي هالكو دورة يسوى ضد كفر الله يودي وكي حقيقة الدنيا شركة بارئ مركز دولة شرين تلكينا اللقيب شيء استعمار كل لدك تخط على رجل وسيدك أحبرت من وقشرين سنة الفورشاح اللي قبل ضفي فردين واتي مقتل يوسف تبدي حجاد دشين وكيدا كان عربور كان لقود الفرين واحد لم بيداديه وانا حرم الدولة انه نقول لها كي دولة يليغو ضدك كفر الله يودي واكي رشيد للطقل وعبد الرشيد عن شمار إلى هلا وداين واكي رشيد للطقل دوكي كسو هرينا قالوا باسنا وقدروا دولة تقروا يميتكوا تاسنا واحد بدن بيداديه وانا حرم الدولة انه نقول لها كي دولة يليغو ضدك كفر الله يودي واكي رشيد مدو قول ده تاريخ ده ومد أدي الدولين صوماوا اسكتوا بواسي تبار دقال كرين من كسي دبر قايا وياكي دميرو شهرين لبنكو قيرانين كسياسي الأرسنة روش باقي قهي شدون النوادي وانهانتين هل كيدونا يلي قلتك كفر قحوتي واتنورا طالطولي تدلين ما نفسي قلتنا يواكي دنبال تشتغل يا هاديك تارسا واتنوكي كرين تلقي كعي وياكي الباحث إلهي يوداين ضد إسلام بانونا دود كي نبي آدى ضدك سوقانونا دي هاتاي حاول قصة هارتي بانونا dadkii nabi maxamed loo soo diraanana dadkii shanta diin islaam deeqday baanuna ilaahay oo daayin dad islaam baan dadkii nabi aad dadka soo go'aan hadii ay xaawad dusha saartay baan dadkii nabi maxamed loo soo diraanana ilaahay oo daayin caalam baa dusha islaam ilaahay oo daayin caalam baa dusha islaam aqoonta mid la dalo dooshay dib loo wiilkii aabihi loo dilay diyaar garoy madaafiic daranaysa dawlad inaa jirtaa inaynu ducaysanaa baa dunyada iyo reer ogaadeen isku dublo qarmo waxaan saarkii شفت مدري بحريته وقاعدين وانقرت جرام بركاس وانقرت أفضل محسن تهاي هو عنب موسى فولي برام بركاسي تاريخ لها أسهل لها لو ذاكتي أما أن لو ذاكتي له وهدم بقرارو وذكا قراراتو وذكا